waxaad halkan ku dhegaysataa sababta uu nooga reebay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam xanaaqa ama carada gaar ahaan hurdada ka hor yacni haddii aad seexatay adoo xanaaqsan ama caraysan dhibaatada arrinkaasi uu kuu keeni karo rasuulkeennana horey noogu sheegay cilmiga casrigaana maanta uu ogaaday ayaynu cashirkeennaani ku wada wadaagaynaa walaalayaal si aad u fahamtid oo aad uga faa'iidid bilowga ilaa dhammaadka nala dhegayso adigoo la wadaagaya inta aad la jeceshahay caafimaad adduunyo iyo mid aakhiraba qof yowa seexan adoo caraysan ama xanaaqsan sidaasi caafimaadkaada uma fiicna bilowgaba intuusan ka hadlin cilmi baarista casrigaani xanaaqa iyo saamaynta insaanka uu ku yeelan karo horay baa rasuulka ilaahay uu noogu sheegay oo nooga digay xanaaqa ama carada nebiyullaahi moxamed waxaa u yimid ninkaas wuxuu yidhi yaa rasuulallah waxaad i bartaa arrin oo aan kugu badbadin laga yaaba arrinkaasi inuu anficee rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ha caroon wuxuu ninkaani yidhi rasuulka ilaahayow shay ii dardaaran i anfacaya adduunyadayda iyo aakhiradaydaba rasuulku wuxuu ku yidhi ha caroon hadalkiibuu soo celiyey ninkii rasuulkana sidii buu ugu jawaabay laa taqdab dhowr jeer bay sidaasi isdhaafsadeen ninkii dardaaranka doonayey iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam caradu saamaynta ay ku yeelan karto qofka insaanka jidhkiisa iyo maskaxi ahaanba cilmi baarista cusub ee casrigan la qaaday waxay tilmaamaysaa hal hamayn haddaad seexatid adoo xanaaqsan inay kugu soo noqonayaan xasuusihii xumaa ama noloshaadii wixii ku soo maray ee xumaa maskaxdaada ayay haleelayaan arrinkaasna wuxuu kaa dhigayaa inay kugu adkaato inaad waxyaalahaasi xun ka hortagtid oo aad hor istaagtid saamaynta ay maskaxdaada ku yeelan karaan cilmibaaristu waxay tilmaantay natiijooyinkii ka dhashay hurdada aad seexatid adoo xanaaqsan ama caraysan waxaa suurtagala in uu siyaado iska horimaadka jidhkaada iyo inuu iskhilaafo marka ha seexan adoo caraysan halis weeye arrinkaasi sideeduba hurdadu waxay ciyaartaa dowr muhiim ah oo jidhkaada ah xasuusta wanaagsan hadday noqoto macluumaadkii kaa hallaabay ama iskaga kaa dhex yaacay ayay kuu nidaaminaysaa hurdada aad ku seexatid qaab wanaagsan waxaa kuu kaydsamaya xasuuso wanaagsan oo maskaxda kuugu kaydsamaya haddaad seexatid hurdadaas oo ka maran walwal walbahaar istarays iyo wax kasta oo qofka soo wajaha sida carada haddaad seexatid adoo deggan oo aan xanaaqsanayn oo faraxsan waxaad helaysaa inaad ka hortegtid xasuusihii xumaa ee qalbigaada ku soo noqonaya saamaynta weyn laga yaaba inay kugu reebaan si aad naf caafimaad qabta u heshid arrintaani waa shay asaasiya intaad xanaaqsan tahay ha seexan hurdada shay weyn bay kuugu fadhidaa hurdada uu ruuxu seexanayo isagoo deggan wuxuu helayaa xasuus dheeriya iyo waxyaalaha wanaagsana noloshiisa in ay u kaydsamaan muddo dheer wuxuu ka fogaanayaa saamaynta xun maskaxdiisa ku dhici karta inay kugu soo noqoto waxyaala ku soo maray xunxun ayay ka hortegaysaa maskaxdu haddaad seexatay adoo deggan oo aan xanaaqsanayn aqoon-yahanadii sameeyey cilmi baaristaani waxay ku tilmaameen natiijooyinkay u soo baxay inay maskaxdu xoojinayso xasuusooyinka hadduu qofku seexdo asagoo aan caraysanayn marka waxaa muhiim ah inaad ka takhallustid xasuusaha xunxun iyo dareemayaasha carada hurdada ka hor ha seexan adoo xanaaqsan laga yaabaa haddaad seexatid adigoo caraysan inay ku soo wajahaan xasuusooyin hilmaankoodu kugu adkaanayo kuwaasoo ah kuwa xunxun carada sidee uga takhallusaysaa sideeduba caradu min ashaytaani bay ka timid markaad xanaaqdid ama caradu markay kugu dhalato haddaadan weese qabin weesayso haddii aad weese qabtina weesada cusboonaysii haddaad soconaysid istaag haddii aad taagan tahayna fadhiiso haddaad fadhididna seexo adoo dhahaya acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim dhinacyadana u tufaya candhuuf yar oo neef wadata walidaalika nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey qofka xoogga badan rasuulku wuxuu yidhi waa qofka markaa uu caroodo naftiisa ka adag yacni qofka xoogga badan ma ahan midka dadka feera oo jejebiya oo feeraha weyn ma ahan kaas qofka geesigaa ee xoogga badani waxa weeye qofka naftiisa hanta koontaroola celiya markuu caroodo waayo haddaad xanaaqdid xanaaqaada heerkulkiisana aad ka jawaabtid marka xanaaqu kaa dego waxaad samaysay markaad xanaaqsanayd ayaad ka shallaynaysaa qofka mu'minkaana inuu shallaayo ama u qoomameeyo wax u qalma ma ahan sidaa darteed baa rasuulku wuxuu arkay nin xanaaqsan oo sidii ritigii doobinaya markaasaa rasuulku wuxuu yidhi may u sheegaan
shaydaanka ha iska naare caradiis waxay maraysaa heer waali ah taasi ha ka jawaabin isxakamee marka rasuulku wuxuu yidhi laa taqdab ha caroon yacni maxaa loo jeedaa haddii aad xanaaqdid xanaaqaada ficil inaad samaysid yuusan kuu sababin isxaji is ilaali dadku waa xanaaqaya qofku waa isbedeli karaa adduunyadan iyo dadkan kala nooca ayuu la mucaamilaya laakiin hadduu xanaaqo ama qofka dhibsado ficilkiisa yuusan ka jawaabin caradiisana yuusan hogaamin suusan hadhow u qoomamayn aad iyo aad baad u mahadsan tihiin baaraka allahu fiikum meelaad joogtaan baa ilaahay aydan